sharaf weyn waxay inaan maanta shirkan muhiimka aan kala soo qayb galo oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda reer Jarmal iyo jaaliyadda reer Kasal oo maanta muujiyay muhiimadda ay leedahay caalamka Soomaaliyeed iyo soo dhaweynta ay soo dhaweynayaan madaxdooda cusub ee safaaradda Soomaaliya. waxaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda reer Jarmalka ugu hambalyeynaya munaasabadda qiimaha badan ee 26 Juun ee ku beegan sanad guuradii 64aad ee ka soo wareegtay maalintii ay gobolada waqooyi xorriyadda ka qaateen gumeysiga Ingiriiska iyo maalinta xorriyadda Soomaaliyeed ee ka wada lulu. waxaan rabaa khudbadayda inaan ku iftiimiyo laba arrimood oo kala ah xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo talabaad oo ah inaan dib ka mid ka dhaho arrinta jaaliyadda reer Jarmal. ugu horeyn dowladda Soomaaliya waxay ku jirtaa sidii loo heli lahaa nabad iyo ammaan waara kadib 33 sano oo colaado iyo xasilooni darro ah ummadda Soomaaliyeed ku reebay nabarro caqabad ku noqday horumarkii iyo wadajirkii Soomaaliya. haddaba si higsigaas loo gaaro dowladdu waxay xoogga saartay xasilinta amniga, maamul wanaag, horumarinta dhaqaalaha, waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo iskaashiga caalamiga ah. marka laga eego arrimaha siyaasadda labadii sano oo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, Soomaaliya waxay gaartay guulo la taaban karo sida in Soomaaliya laga cafiyay deymihii, ka qaadista wadaqabeynta hubka, la dagaalanka argagixisada iyo ku biirista suuqa bariga Afrika, iyo in Soomaaliya loo doortay 2 sano kursiga qaramada midoobay ee United Nations. taas waxay muujinaysaa in Soomaaliya ay gaartay guulo diblomaasiyadeed oo baaxad leh oo kasbaday kalsoonidii caalamka. Soomaaliya waxay ku socotaa wadadii dib u heshiisiinta, dowlad dhiska iyo midnimada qaranka. banaanta koowaadna waxay siin doontaa inta waqtiga u harsan in la dhammaystiro dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya iyo in waddanka uu dimuqraadiyad gaaro oo qof kasta uu doorto madaxda Soomaaliya la doorto hadda wixii ka dambeeyay. arrimaha amniga dowladda Soomaaliya waxay xoogga saartay dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada, kuwaasoo khatar weyn geliyay xasiloonidii dalka, amnigii gobolka iyo kan caalamka. dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay la wareegto mas'uuliyadda amniga dalka. golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika waxay dhawaan go'aamiyeen in si buuxda mas'uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. kadib bixitaanka ciidanka Admas ee dhamaadka sanadkan dhamaadkiisa December 2024. arrinta Itoobiya ee hadda taagan sida uu madaxweyne Xasan Sheekh hore u sheegay, dhulka iyo badda Soomaaliya iib maaha, waxaana ku bedelan mayno.
haddii